ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal halkani waa markaska caalamiga ah ee Al-Mahmudiya Suufi Islamic Center magaalada Makina Road gobolka Kuala ee dalka Kenya halkan maanta waxaa ka qabsoontay xaflad si heersare loo soo agaasimay isla markaasina lagu soo dhaweynayay caalimka weyn ee mutakallimka ah ee Sheekh Cabdullaahi Maxamed Uthmaan oo loo yaqaano Sheekh Cabdullaahi Shuke Sheekh Cabdullaahi Shuke oo ay galbinayaan gaadiidka gaarka ah ee Al-Mahmudiya ayaa halkan maanta soo gaaray durba markuu halkan soo gaaray waxa lagu soo dhaweeyay salliga nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay Cabdullaahi Shuke oo laga dareemayo wajigiisa sida ugu faraxsan yahay soo dhaweynta heerkeedu sareysa ee lagu sameeyay markaska caalamiga Al-Mahmudiya ayaa si kooban noola hadlay waxaana uu ka sheekeeyay sida uu arko in uu soo gaaro halkan oo markaska Al-Mahmudiya Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan salaamahay dhammaan ikhwaanka iyo walaalaha runtii meeshan lagu soo dhaweeyay soo dhaweyn aanan xaqiiqatan aanan laayiq u ahayn oo aan mudnayn laakiin walaalaha waxay nagu soo dhaweeyeen waa xusnu dannigooda waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa ja'alana Allahu 'inda husni dhannikum ilaahay haydan barakeeyo sidaas quruxda badan oo aan noo soo dhaweyseen aan ugu sharafteen aan ugu karaameyseen ilaahay haydan karaameeyo idinkana ilaahay haydan sharafo runtii soo dhaweyn noocan oo kala laayiq uma nihin marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaaro aan soo booqdo ahlullaahiga iyo zaawiyadan Al-Mahmudiya dhammaan waan salaamayaa walaalaha soo dhaweyntiina waan kaga mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay la kulanka ikhwaanka iyo ahlullaahiga
iyo runtii waa wax farxad la weeye la kulanka walaalaha nagu soo dhaweeyey maqaamkan quruxda badan zaawiya almaxamuudiya marka walaalaha dhammaantood aan u mahad celinayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum walcafu minkum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekha ayaa ka qayb galay siyaaradii 15aad ee allaha ka raali noqdee weligii ilaahay caarifka ahaa ee as-sayid sheekh maxamed sheekh xuseen sheekh cabdi oo loo yaqaano sheekh maxamed raamoole halkaas uu ka soo jeediyey muxaadaraad aad u xiiso badnaa. maantay waa maalin uu batay fasaadkii uu batay ibtidaaci ay badatay calmaaniyiintii iyo gaaladii iyo qur'aaniyiintii ay soo bateen mulxidiintii ay soo bateen oo hadda la helahayo maanta ay joogaan baraha bulshada dad ayagoo af Soomaali ku hadlaya haddana mulxidiina haddana qur'aaniyiin oo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam inkiray intaasoo marka ay soo baxeen afkaar oo munxarifa ah oo zaa'iqa ah oo daalla ah waxa looga badbaadi karo loogana soo badbaadi waa caqiidada ahlus sunna wal jamaa barashadeeda tacallumkeeda iyo tacliinteeda. rabbi ha dhowray sheekha ayaa si qurux badan looga sagootiyey xarunta markaska almaxmuudiya kadib dhowr cisho uu ku sugnaa wuxuuna siyaaro ku sii maray dariixa sayid sheekh maxamed raamoole oo ku yaalla isla magaalada makiina intaa kadibna waxa uu ambabaxay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya halkaasoo berihii ugu dambaysa sheekha fadhi u ahayd islamarkaasna uu ka akhriyay duruusta. weynaynta diinta iyo ehelkeeda waa astaanta gaarka ee lagu yaqaano markaska almaxmuudiya magaalada Makina Road ee dalka Kenya. waxaa halkan si joogta u yimaada culimo ka kala yimaada deegaano kala duwan oo daafaha dunida kuwaas oo si weyn halkan loogu soo dhaweeyo. sidoo kale halkan waxaa ka qabsooma kulamo waaweyn oo looga hadlayo arrimaha dacwada diinta islaamka halkaas oo markasku uu soo qaban qaabiyo. xasan maxamed samatar cawke TV-ga caalamiga almaxmuudiya Makina Road.